marka hore marti sharaftii madaxda kala gadisan duqa degmada Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer wasiirka wasaaradda qorsheynta wasiirka wasaaradda hawlaha guud wasiir ku-xigeenka biyaha xildhibaanada golaha deegaanka mayor ku-xigeenka iyo barasaab ku-xigeenka taliyaha qaybta asluubta militariga bahda cuqaasha iyo dhaqanka hablaheena sharafta badan shaqaalaha wasaaradda hawlaha guud shaqaalaha dawladda hoose isuduwayaasha iyo madaxda degmada Burco iyo gobolka Togdheer dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan dabadeed soo dhaweyntu waa laba midna waa tii degmada Burco oo waxa iska leh meeyarka magaalada Burco ee runtii martida loo yahay maanta iyo gudoomiyihiisa gobolka midna waa tii wasaaradda hawlaha guud iyo xafladda master balaanka tan anigu ku hadlayaa waa tii master balaanka iyo wasaaradda hawlaha guud qorshaheeda si aad la wada socotaan ama hadda aynu u joogno runtii maanta ay bishu tahay 22-kii bishii 6aad 2022 maalin Arbaca ah waxaanu daa furaynaa master balaanka ama qorshe magaaleedka magaalada Burco haddaan in yar idinka siiyo warbixin guud oo meelaha uu soo maray iyo dhulka uu soo maray master balaanka magaalada Burco maanta jooga ama in yar aan taariikhda dib u celinno waxa weeye runtii saa la wada socotaan wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo guryeyntu qaranka jamhuuriyadda Somaliland sida qabaan xeer 7/2015 iyo xeer nidaamyaha 0/2018 qaranka shaqooyinka u qaabilsan yihiin waxaa ka mid ah inay sameeyaan master balaano qorshe magaaleedyo waxa weeye magaalooyinka jamhuuriyadda Somaliland oo dhan ah magaalooyinka jamhuuriyadda Somaliland sidaan ka warqabno waxay isugu jiraan degmooyin A kuwa B iyo kuwa C marna 23 degmo doorashaynu nahay mar 6 degmo A baynu nahay marna waxaan nahay 101 degmo haday tahay A iyo B iyo C iyo D ba intaba waxa xaq loogu leeyahay wixii waqtiga iyo wadciga iyo dhaqaalaha iyo awoodda aynu haynaa aynu ka fursan weyno ama ilaahayna sulansiiyo in dhamaantood loo sameeyo qorshe magaaleed saynu la wada soconno qorshahani waa qorshihii 6aad degmooyinka eeda ah runtii maanta laga fuliyo waxaa ka horeeyay degmada Laascaanood oo lagu bilaabay degmada Ceergaabo degmada Gabiley degmada Boorame degmada Berbera iyo degmadii 6aad oo ah degmada Burco maanta joogno waxaa laga yaabaa dad fara badan oo reer Burco inay isweydiiyaan maadaama oo ay Burco tahay magaaladii labaad ee dalka ugu weynayd maxaa iyada lagu soo horeysiin waayo waxa lagu soo horeysiin waayo wax kale ma aha runtii magaalada ka weyntahay way ka culays badan tahay marka labadii degmee dalka ugu waaweynaa ee degmada Burco iyo degmada Hargeysa gaar baan u dhiganay markaan khibradayada soo carbisano oo soo tababarano baan isnay reer Burco isu kaalaya haddaynu khibrad badan isla imaan ama aqoon badan isla imaan magaaladiina ay ballaaran tahay baaxadda leeg tahay runtii waxay noqonaysaa in culays fara badan ku dhaco magaalada Burco runtii waxa weeye maanta aad baan ugu faraxsanahay inaanu nimi ujeedooyinka master balaanka laga leeyahay wasaaraduna ay wado dhowr qodob buu soo maraa saddex face baa ugu waaweyn marka koowaad waxa soo codsada procedure haddaan idin sharaxo councilka la doortay ee degmadaasi ay leedahay hadday Burco tahay iyo hadday mid kale tahay sida ka wada warqabno maayarkeenii hore iyo councilkeenii hore oo u malaynaya maayar ku-xigeenkii hore iyo qayb xildhibaanada ka mid inay nala joogaan waxay soo codsadeen in qorshe loo sameeyo master balaanka degmada Burco halka markii arrinku marayay waxaanu samaynay in wasaaradda codsiga councilku soo saxeexay uu soo gudbo wasaaraduna waxay gashay dood dheer waxaanu samaynay wadooyin badan baanu maray waxaanu miisaaniyadda qaranka ku guuleysanay in lacag loogu daro degmada Burco lagu maalgeliyo master balaanka maadaama qarash fara badan waqti fara badan shidaal fara badan gaadiid fara badan intaba ay ku baxayso procedure-ka markay soo martay wasaaradda maaliyadda sanadka 2022 aanu ku guuleysanay in lagu daro master balaanka magaalada Burco waxa ku xiga in la yimaado magaaladii assessment la sameeyo oo phase-ka labaad ah data collection la sameeyo assessment-ka iyo data collection-ka magaalada dhammaanteed 4 daamood ama 5 daamood ama inta xaafadood u kala baxdo shaqaalaha wasaaraddu way gaarayaan
kadib waxaa la samaynayaa in xog ururin dhammaystiran laga sameeyo runtii xilliyadaanu qaban jirnay launchingka master balanku wuxuu noqon jiray faceka u dambeeya oo ah implementationka annagoo gacanta ku hayna maxay burca iskuula leedahay maxay xabaalo leedahay maxay masaajida leedahay maxay sariibada leedahay maxay suuqya leedahay maxaa danguuda maxaan danguud ahayn maxay runtii u baahantahay magaalada hadda ka dhiman maxaa drainage maxaa biyuhu mari karaan maxaa kubadda lagu ciyaari karaa intaasoo qorshe annagoo hayna weliba aanu bulshada la wadaagana screentan u dhejinno baanu sharaxaad halkaa ku samayn jirnay kadib waxaa la garan jiray asaasiyaadka iyo baahiyaadka iyo meesha laga dhaqaaqayo ujeedooyinka ugu waaweyn ee master balanka laga leeyahay waxaa weeye runtii sidaynu ka wada warqabno in badanna aynu dhaliisheeda leenahay dowlad ahaan iyo shicib ahaan shicibkeennu in muddo ah waxay isaga degeen si madax bannaan adduunkana dadkeennu degsiimada iyo sarfaceka degsiimada horeysa marka meesha la dego biyana aynu doonno leyrna aynu doonno caafimaadna aynu doonno laakiin sida qorshe magaaladada caalamka lagaga dhaqmo ama xeerarka caalamku ay qabaan sarfaceka iyo degsiimada sarfaceka horeeya marka xaafadii iskuul loo helo biyo loo helo waddo loo helo baa wixii degsiimo ah loo fasaxaa ama loo ogolaada oo la gaadhsiiyaa sida awgeed ujeeddada ugu weyn ee waxaasoo tacaba dad fara badan baa laga yaabaa inay leeyihiin maxaa sababaya in intaasoo xoolaa la geliyo in intaasoo waqtiya la geliyo intaasoo juhdiya in la geliyo maanta magaalada burco markaad u timaada meeyarkeeda ama madaxda magaalada xukunta runtii in qof shiciba la weydiiyo oo la yidhahdo hebelow beertaadii ama dhulkaagii iskuul baanu ka bixinaynaa ama meel heblaanu ka bixinaynaa mooye ee wax cad oo danguuda oo dhammaystiran oo rasmiya oo qorshe magaaleed guud oo laysku ogyahay kusoo baxay ma jiro individual baynu beeraha u qorshaysanay haddaynu nahay reer somaliland oo dhan beertii reer hebel intaasaa danguuda ka go-aysa kani waa mid guud oo waxa weeye babliga oo degmada burco oo dhan khuseeya markaanu master balanka ku guulaysano intii hore waynu ogsoonna sidaynu doonnaynu u degnay si kastaba aynu u dadaalo standardkii caalamka maynaan waafajin ama dee dunida horumartay ama dowladaha leh sidanoo kale maynaan waafajin dowladnimadana runtii waa intaynu inagu aaminno aynu soo aqoonsanno inaynu dowlad nahay uun baynu dowlad ahaanaynaa kabacdi waxaanu hadda qorsheynaynaa annagoo ujeedkaygu yahay wixii tagay tiigsimaad ma leh 15 sano ee soo socda ama 20 sano ee soo socda wixii ilaahay ku sumo burco ilaan dadku biyo maaha guri maayaane sidee bay u ekaanaysaa xaggee la degayaa maalinta master balankaasi dhammaado maaba baa la samaynayaa xafiiska badhasaabka ka meeyarka ka wasaaradda howlaha guud iyo ka xarunta intaba waa la dhigayaa waxaynu garanaynaa maxaynu dal guud haysanaa waxaynu garanaynaa intee iskuul baa xaafadda aynu ku calaamadan waxaynu garanaynaa intee baynu stadium ku calaamadan waxaynu garanaynaa intee baa wadooyina 24 18 12 intee wada ah baynu kala garanaynaa waxaynu garanaynaa maxaa drainage aynu helaynaa iyo dhulkii biyuhu marayeen waxyaabaha Soomaaliland caanka ku tahay ama magaalooyinka aanu ka soo baranay waxaa ka mid ah in xaafadaha qaybna ay isdul yaaleen 5 iskuul iyo 5 stadium xaafadina aysan lahayn hal iskuul iyo hal stadium taasina runtii wasaaraddu go'aan bay ka gaadhay wasiirka wasaaradda howlaha guud sharafee ka gaadho oo runtii injineer ah waxa uu nagu hogaamiyey annana aanu ku raacnay technical ahaan in la sameeyo NUBS waxa la dhaho National Urban Plan Standard wuxuu jidaynayaa primary to primary intee baa u dhaxaynaya secondary to secondary school intee baa u dhaxaynaya stadium to stadium intee baa u dhaxaynaya wadooyinka noocaas balbalaadan ee quruxda leh ee magaaladu marka ay dhisanto ama aanu laami saarna ama jidcadaha inoo noqotee sidii lagu heli lahaa weeye ujeedka koobaad aan leenahay intaas oo sharaxaadda guud ee master balanka iyo faa'iidooyinkiisa maxaa la idinka baahan yahay haddaad tihiin reer burco kolle sidaan ka wada warhayno dee waa magaalo in badan caasimad ahayd xadaarad ahayd caasimadii hore ee jamhuuriyadda Soomaaliland ahaan jirtay oo kolle dhulkii hore loo dega ahayd waxyaabahan uga baahannahay waxaa weeye Soomaalida waxay ku maahmaahdaa waa yeelku waa inteenan aan isyeelyeelay runtii reer burco maanta baqdin kama qabno soo dhaweynta master balanka haddii in uun qof ciddan gaara ama culays gaara uu kaga dhacayo waxaa ka muhiimsan waxa guud ee danta guud ee mujtamaca ah magaalada burco ilbaxnimadeeda iyo xadaaradeeda iyo siday arrinkan diyaarka ugu tahay iyo siday soo ahaan jirtay kale waxaan filayaa inta media ku xidhan dee wasiir Salmaan Cali Kooraan reer burco iyo dhawaan isbaray reer Somaliland aad sumay aqoon sidaa awgeed waxaan u baahanahay intii Salmaan Cali Koor sheegayay
هيد البحنمدي مدحتنمدي دبهشيسينتي wax kasta oo Soomaaliland runtii la bilaabay burcay ka bilowdeen marka waxaan u baahanahay saan ujeedka u gaarno waxa weeye ayna u dhawowdo una dhamaato annagu daashqaraar baynu ahay dadkii intii Soomaaliland jirtay ka caamay baan annagu ahayn xaqiiqatan wasiirku marka uu ka sheekeeyay intaas oo qof waxa weeye intaas oo madaxa ka soo jeeda laba ag fadhiyo waxa ku murmaan cigaal reer berbero hamsareer burco aha وأنتي وقف فضلي اللي هو مر مكرا ما كرنتي واحد وقف هنا هاي هدي مجال برعان وسوي جستو مركب كماد واحد طلع وهو بهنا هاي واحد تصارع وهو بهنا هاي واحد تعب وهو بهنا هاي واحد قاران وهو بهنا هاي قاران كواكيد قارا وكي وقت وكي ترادا ويل كرير برعو يعاد كرير برعو يكوفية كرير برعو سينو كوضا ورها إن نبدينا يسكتشجينا يدول النمدينا استيل وحبيس إننا إنه كجرب شغلنا وويل كنا يدعي كنا إن النجوه رجالان عرف تيجوا كحيان وحوي ماشي مرتين لمريو وشيت كوجو إنه غير برعاء إنه يهلان مستر بلان. For example هذا السوق على مجال ينحكت ولا سعانود دقنا هان يديجنا هان بس إنه كوضا ورقة بنو دل سعانود مجال كلاد بيهيد قرية دمي ويلا السكر ديري اللي وجود هدي dad badan oo Soomaaliland perception bay ka qabaan dawladnimada inay sanaqoon laakiin runtii wasaaradda hawlaha guud waxa uga soo baxday waxaysan ka filayn oo dad diyaar u dawladnimada in cagaftu marto in wadada la socodsiiyo in wax qurux badan soo baxaan marka la saarado in ognahay culisyada saarna iyo sida ay ahayd intii u dambeysay haday sidaas la mid ugu dhiiratay magaalada labaad ee Soomaaliland ugu weynayd runtii maanta inay iyaduna ku dhiirato diyaar baan u nahay wixii dambe inta ka dambeeyna kulli waxa faahfaahin doona injineerada iyo madaxda wasaaradda wasiirku ugu horeeyo waxaan ku soo ururinayaa reer burco inay u diyaar garoobaan maantana in badan ay dhigta u taageen master balankan idin yimi maalintan xogta dhamaynana talada iyadu dadka way u furan tahay maaha wasaaradda inaan anagu jeebka ku sidano howlashan isugu imaanaynaa jaamacadahan isugu imaanaynaa dood baynu qabanaynaa maxaa faa'iido ah baan leenahay wadooyinka quruxda badan baa la intu sayaalidin sameyn doona faa'iidada uu leeyahay oo tusoo taabsiya bacda data collection ka aynu maanta daafurayna baa la gelayaa runtii hadalkii waan dheereeyay wabillahi tawfiiq